saad ogtihiinba waxaa ka taagan cariga ama geyiga Soomaaliyeed waxaa ka taagan abaara aad loogu baaba'ay oo geelii lo'dii arigii aan waxba harin hantigii dadku ay dhaqan jireen Soomaaliyeed oo boqolkiiba 80 ku tiirsanaa dhaqaalaha baadiyaha iyo xoolaha ku tiirsanaa oo baadiyaha deganaa ama qaar ka mid a magaalooyinka iyagoo deganba ay xoolaha manaafacaadsan jireen waxaa dhacay abaar runtii xaqiiqatan aad u daran ayaa dhacday gobollada Soomaalidu ay degaan ama Kenya ha ku yaalaan ama Soomaali weyn ha noqdo ama ha noqdo gobollada Ethiopia ama ha noqdo Djibouti meel kasta oo gobollada Soomaalidu ay degaan ama deegaamada Soomaaliyeed ah bay ka jirta abaarahaas iyo mushkiladahaasi ay ka jiraan waxaa u sii daran hadda maanta iyo xilligan hadda aan joogno waxaa ugu daran gobolka Soomaali galbeed ee Ethiopia dadka Soomaalida Ethiopia la yiraahdo ama Soomaali galbeed bay dadku aad ugu yaqaanaan gobolka waxaa ka taagan abaarihii ugu xumaa abid ee soo mara runtii waxay leeyihiin dadka waaweyn 40 sano ka hor ayaa ugu dambeysay abaartan oo kale sida abaar la dhihi jiray dabadheer oo kale ayaa ka dhacday deegaanka iyo carigaas ee Soomaali galbeed oo aad loogu hoobtay xilliga laakiin dee dabcan waad garanaysaan 40 sano ka hor Soomaaliya ayaa dhisnayd oo dadka aad ugu caawisay oo wax u taraysay laakiin maanta dawladina ma jirto waxaa dhacday dawlad awood badan macnaha oo dadkii wax u qaban karta xataa waxayna wax ka qaban karin abaarihii dalka ka jira dawladda maanta hadda jirta marka waxaa dhacay abaartii ugu xumayd 40 sano iyo ka badan oo deegaankaas soo marta ayaa maanta jirta waana xaqiiqa runtii xaqiiqatan qof waliba uu ogaan karo oo uu soo taaban karo weeye dhibaatooyinka iyo mushkiladaha iyo abaaraha iyo dhimashada ka jirta gobollada qaarkood dadku waxay sheegayaan inkastoo qiila waqaala ay tahay dad inay meelaha qaarkood ku dhinteen laakiin dawladdu sida ay sheegaysa deegaanka Soomaalida ka jirto oo runtii xaqiiqatan dee ayadu juhdi badan iyo dadaal badan ku suubinaysa ama ku bixinaysa waxay sheegayaan inayna weli jirin wax bini aadam ah oo ku dhintay ama qof yar ha noqdo ama qof weyn ha noqdo weli abaarahan ma dhimanin dad iyo bini aadam oo dadka qaarkood sideedaba markay masaa'ib meela ka dhacaan dad baa buunbuuniya ama ayagu siyaasad ahaan ha uga qastaan ama maaragtay ayagoon war hubsaninba ha soo gudbiyaan oo dee dhaqankaasi weligeedba uu ka jiray dadka muslimiinta ah gaaladan hadalkeed badaa oo muslimiinta waa kii la lahaa nebi maxamed oo nool hortiisa in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu nin muslim ah oo wax xubsan waayey qisadii uu ku saabsanayd unbay kusoo degatay aayaddaasi laakiin abaara aan indhaha laga qarsan karin oo runtii xaqiiqatan xayawaankii iyo xoolihii waddanka ka jiray ay eber baxeen baa ka jira waddanka waxaa ka jira baad la'aan baa ka jira oo xooluhu waxay maanta cunaan oo caws ah ma jiro raashin loo dhigaana ma yaallo dhulkii oo ku filan oo xoolihii loo dhigi kara dee 100 neef oo geela 100 neef oo la iyo ka badan 200 300 oo ari ah ma u malaynaysaa qoysku walba intaasaa laga yaabaa inuu leeyahay ma dhici kartaa in raashin sida bini aadamka loo siiyo lamaba heli karaba kamaba jiraba deegaankii raashin noocaas oo cadadka iyo tan kale kama jiro xoolihii marka aad bay baahida ugu dhinteen waxaa kaloo ka jira biyo la'aan oo wadamada meelaha qaarkood haddiiba xataa caws iyo daaq ay xooluhu heli lahaayeen biyo la'aan baa ka jirta baahsan gaadiid maanta weyn oo ku filan oo booyada ah oo biyihii u geynayaana ma jirto dhibaatada markaa waxaa inaga saari kara rabbulciza rabbulcaalamiin unbaa inaga saari kara cid bini aadam oo inaga saari karta ma jirto iska dhaafee dawlad afrikaana iska dhaafee dawladaha caalamka oo dhan iyo hay-aadka caalamka oo runtii haddaba soo wada gurmaday hadday isu imaadaan wax ay ka qaban karaan ama wax ay ka kafayn karaan ma jirto runtii xaqiiqatan dawlad deegaan iyo dawlad maanta afrikaan ah dhaqaalaha yaallaba ma dhannaba dadka inay wax u qabtaan maba dhannaba hadday wax walba dadaal badan bay suubinayaan wanaag badan bay suubinayaan shacabka way u istaageen hadday biyo noqoto hadday raashin noqoto laakiin maxay ilaa xilligan runtii xaqiiqatan akthar meelaha abaaraha ugu saamaynta badan gobollada ugu saamaynta badan waxaad arkaysaa inaan dee waxbaba dadkii ayna gaaraynin sababta dee awooddii baa ka badan baahidiina way badan tahay awoodda la leeyahayna way kooban tahay marka dadaal ma yara horta waxaa laga rabaa marka shacabka
meel kastoynu joogno ama aynu waddankii ka soo maqnaana ama waddankii dadka jooga ha noqotay horta rabbulciza in loo laabto ilaahay gacmaha kor loogu taagto ilaahayna la weydiisto caawimaadda dhabta ah runtii ilaahay caawa roob ka da'a dhulkii iyo ilaahay raxmaad xaggiisa ka imaaday baa dadkaa ku filnaan kara wax bini aadan soo maray kumana filnaan karo gaajana ka bixin maayo oonna ka bixin maayo haraadna ka bixin maayo waxbana u tari maayo marka horta dadka meel kasta oo la joogo inteena maqana ilaahay aan u barina inta gudaha joogtana ilaahay subxaanahu wa tacaala gacmaha kor u taagaan sida sunnada iyo dhaqanka nabigeena u ahaa roobdoon ha la sameeyo oo dadku intay baxaan bannaanada iyo garoomada loo baxo ha lagu tukado oo 2 ragcadood oo sunno ah oo ilaahay lagu baryayo ha lagu tukado sidii dhaqanka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ahaa kadibna gacmaha kor ha loo taago qof kasta oo la tuhmayo oo cibaadi iyo khayr lagu tuhmayo noo ducee ha la yidhaahdo ha baxaan carruurta iyo duqayda iyo waayeelku ha baxaan ha la baryo ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu ina ajiibayaa taasi waa midda ugu horeysa ugu muhiimsan weeyaan ummaddanina baahidan iyo dhibaatadan iyo qaxdigan iyo abaarahan iyo mashaakisha jira ay kaga baxayaan midda labaad waxa weeyaan war inteenna wax uuna heli karta koob biya haddaad awooddo shilin lacaga haddaad awooddo wixii aad awooddo qof walowba meeshaad joogto dubka muslimka uu ku yaallow kac oo u kac ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed ee cid kasta oo soomaali ay degan tahay deegaanka soomaali galbeed la yidhaahdo ma jiro ruux soomaali ah oon deganayn lagama helayo ama qoys soomaaliya ama family soomaaliya oon laga heli karin ma jiro runtii xaqiiqatan xataa faamille aan soomaali weyn laga heli karin baa laga helaa dhulkaas marka waxaan leenahay walaalayaal dubku hayana dhaqaaqo aan u kacno waxaynu heli karno markii la isu ururiyo wixii aynu heli karno aan isu geyno oo dadka culummada ah iyo dadka muxsiniinta iyo hay-adaha iyo dowladaha u istaagay aan ugu dhiibno aan ururinno dhar hadday noqoto hadday dhaqaalo noqoto hadday lacag noqoto hadday raashin noqoto waxaa jira aad baa loogu diyaar garoobay oo dad baa u istaagay culummo iyo waayeel iyo dad wanaagsan iyo businessman iyo cid walbale baa u istaagtay innagana aan ka qayb qaadanno oo qof walba wixii aad awoodi karto runtii ugu diyaar garow inaad kaga qayb qaadato maanta adduun baa joogtaa in laguu soo jira allahu aclam ilaahay baa garanaya sadaqa jaariyay kuu noqonaysaa waxaa laga yaabaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaab kaaga badbaadiyo cadaab inaad kaga badbaada laga yaabaa ummadda muslimiinta iyo xayawaanaadka iyo xoolaha aad badbaadinayso oo nabigeena waa ku lahaa kullu kabidin ratbin sadaqa beer kasta oo qoyan sadaqa ah ayuu noqonayaa wixii aad ku tartiyo wixii aad siiso xayawaanaadka haddaad biyo u shubto haddaad daaq caws u gaddo haddaad raashin u geyso iyo bini aadamkii oo kasii karaama badanba ilaahay subxaanahu wa tacaala faraj iyo khayr badan buu kugu siinayaa ajar badan buuna kugu siinayaa janno inaad ku mutaysato ayaana laga yaabaa walaalayaal waxaa u istaagay culummo waxaa u istaagtay dad ganacsato ah muxsiniin hay-ado qof walowba waxaa xaqiiqa ah dadka wixii aan u dhiibno inuu gaarayo aan ku diyaargarowno aan u diyaargarowno dadka soomaalida dhaqan waxay u leeyihiin markay dhibaatooyinkan oo kala imaadaan inay gacanta isqabsadaan inay ururiyaan waxay awoodaan inay gurigooda wixii yaalla u gudbiyaan dadka masaakiinta ah runtii haddaynu dhaqaaqno waxaa laga yaabaa dadka meesha degan inayna 3 milyan ka badnayn soomaaliduna 20 milyan bay gaadhaa 10 milyan oo inaga mid ah hadday dhaqaaqdo kulligood gaajada iyo baahida waxaa laga yaabaa intaynu la qaybsanno inaynu wax weyn u qabanno innaga oon gaari karin oon gaarsiin karin meesha rabbulciza ama rabbulcaalamiin uu wax uga qaban lahaa ilaahayna aan u barina subxaanahu wa tacaala marka walaal waxaan idinku baraarujinaynaa deegaanka 11 gobol ka kooban oo soomaali weyn baaxad ahaan ku dhow dadkii joogay runtii xaqiiqatan wixii yaraaya adduunya ay haysteenna waa dhaafay dad marka hore jilicsan oo abaara diloodeen oo gumaysi dilooday oo xabsi dilooday oo darxuma dilootay oo aqoon la'aan dilootay oo dhaqaale la'aan dilootay oo baxbaxsa la'aan dilootay oo xataa social mediaha dhulka soomaaliyeeda kale oo dhan ka jira aan ka jirin oo maanta dhibaatooyinkooda aan la soo gudbin karin hadda dabcan cidina ma hortaagna laakiin dadkuba ilbaxaaba ayna lahayn dad social media wax u soo gudbin karaba ayna joogin runtii waxay inooga baahan yihiin dadka inaynu u gargaarno irxamu man fi lardi yarxamukum man fi sama marka waxaa lainooga baahan yahay walaalayaal inaan kacno dadka u istaagay hawsha inaan garab istaagno 100 shilin haddaad awooddo $10 $20 $50 $50 $100 ka badan haddaad awooddo runtii xaqiiqatan meel aad u baahan bay wax u qabanaysaa
markii la isu geeyana waxaa laga yaabaa abaarahaaba dadka in la ilowsiiyo aan u istaagno aan biyaha u shubno aan magaraysa raashinka u geyno runtii meelaha qaarkood aan anigaygan xataa qaar la xidhiidha waxay ii sheegeen xataa qabadinkii xayawaanaadka ama xoolaha ariga iyo geela iyo lo'da loo dhigayay oo bini aadanku inay cunaan ay u baahan yihiin maanta lama heli karo lacag xataa haddii shilinkii aad hesho wax aad ku gadata raashinkii baa lala-yahay meelaha qaarkood runtii xaqiiqatan arrimahaas innagana guryaheenni waan dhargaynaa cuntada qaar baynu soo daadinaynaa wallahi xaqiiqatan waxay inooga baahan yihiin inaynu u istaagno marka aynu u istaagno ilaahay baa inoo naxariisanaya meel kasta oo joogno waxa aan bixinana bedel khayr qabo ayuu inaga siinayaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu inoogu fiirsanayaa midda kale dadkaas runtii intii qof bini aadan loogu gargaari lahaa ee uu gargaar ku mutaysto bini aadam uu u gargaaro ayaa haysato oo dhibaato ah marka qofkii dhawaaq samayn karo oo social mediaha ka dhawaaqi karo waa ajar iyo xasanaad oo dadka aad u gudbinayso dhawaaq kii dhaqaalo bixinayo dhaqaalihii bixi kii adeegii u gudbinayo usii gudbinayo adeegii usii gudbi ruuxna yuuna ruux ku hadlaynin laakiin gacan duuban iyo dadka aaminka in wax lagu hagaajiyo iyo culummadeenna u istaagtay iyo dadkeena wanaagsan ee u istaagay in loogu dhiibo ee runtii abaarihii hore ee soomaaliya ka dhacayay north eastern ka dhacayay jabuuti ka dhacayay u istaagaya meel walba oy soomaaliya joogto in loo dhiibo oo lagu aamino oo xoolahaas ayaga unbaa maanta ummadda ugu aaminsan runtii dowladaha iyo wax walba meel kasta oo wax loo marin kara ummadda in loo mariyo xataa haddaad awooddo adigu dad aad si gooniya ula xidhiidhi karta inaad si gooniya intaad ula xidhiidho wax ugu dirto samee marka nimanyo dadka ha loo istaago dadka ehelka ah ee kasoo maqnaa dadkaas ee meelaha jooga ee wax una heli karana ayaguna xataa waxay kaga qayb qaadan karaan xataa oo sadaqa iyo silaba u noqon karta laba ajarna ay ka helayaan inay dadkoodii waxay u heli karaan inay u diraan oy wixii ay u heli karaan u diraan kuwii soo raacay hadday wax ugu sii dari karaan inay ugu sii daraan ummaddu markay caawa waad ogtihiinoo reer wax karsadaan reerka kale ku xigaana baahidii wixii bay la cunayaan marka hal qoys markaad caawa dabka u shido dhowr qoys oo kale iyaguna waxay sii gaarsiinayaan oo la cunayaan cuntadii marka aynu u dhaqaaqno runtii meesha waxaa ka jira dhibaato aan ka dhicin 40 sano dadka qaarkood 50 sano ayay leeyihiin ayaa ka jirta marka codkayga waxaan caawa kaga qayb qaadanayaa culummada iyo dadka muxsiniinta ganacsatada u istaagtay hala garab istaago meel kastana qof waliba inuu ka jawaabo abaaraha iyo dhibaatooyinka aynu isku dayno dhallinyarada reer social mediana waxaan leeyahay war inta aynu reaction iyo waxyaaba iyo heblaha halkan martay iyo heblaha isruuxday iyo heblaha halkan ka boodayda ku hayno runtii ummad walaalaheen oo Soomaali ah oo dadka oo 7 milyan ku dhow ayaa baahi u dhimanaya oo xoolahoodii baabeen ayaguna maanta ku daba jira inay dhintaan oo nolol xumi ka jirta runtii inaguna aynu kaga qayb qaadana inaynu dadka tusino inaynu soo bandhigno xoolaha dhimanaya dadka rafaadsan dadka baahidu hayso waxaad arkaysaa hooyooyin daqsigii uu indhahoodii iyo madaxoodii wejigoodii sankoodii afkoodii dhagaha meel walba uu ka buuxinayo lianna qofkii wuxuu noqday qof naftii way iloobeen dadkii markaasaa waxay noqdeen xoolahoodii dhintay meel walba xoolihii dhintay baa kasoo uraya xataa dadka daacuun iyo xanuunno inay ku dilaacaan bay halis u yihiin oo waxyaabaha faraha badan ee caafimaad la'aanta ka dhalanaysa xoolaha baktiyey ay keeni karaan iyo abaarahan laftooda iyo awood la'aanta iyo jirkii oo balansigii ka dhammaanayo marka walaalayaal innagana intaynu reactionka intaynu xagga u dhiganno waa usoo laaban doonaa hawlaheenna faakihaysiga aynu maanta shacabkeenna u gurmana Soomaaliyeed runtii waan hubaa qof kasta oo Soomaali ah dad qaraabadiisa abaa gobolka ku nool gobolka Soomaali galbeed dad qaraabadiisa abaa ku nool dad ehelkiisa abaa ku nool haddii Soomaali oo isku qoys aba laga soo tago xataa intii yareeda hoosta kula sii dhalatay baa ku nool marka dadka runtii aynu u istaagno oo u dhawaaqno runtii haddaan helno content social media qof oo caam ah oo youtuberley ah oo facebookley ah oo tiktokley ah oo dhawaaqda wallahi xaqiiqo waxa ay inay abaartan la ogaan doono meel kastana laga ogaan doono abaartan waxa la isweydiinayaa waxyaabaha abaarihii Soomaaliya ay kaga duwan tahay waxa kamid ah meeshii dadka jooga dad ilbaxa maaha social media ma isticmaalaan khad male walidaalika in wax laga ogaada yar meesha laga yaabo Soomaaliya ama North Eastern ama meelaha Soomaalidu degan dib yar oo ka dhacay in daqiiqadaba lagu ogaado meel walba adduunkana laga ogaado wixii ka dhaca meeshani waxa weeye waa meel aan ka jirin horumar xayaato ayna ka jirin inta kaliya maanta heleen ay ku naaloonayaan waa inta 3 sano ay heleen ee amniyaadka ama amniga ee maanta ummadda Soomaaliyeed waa markii ugu horeysay
ay culimmadeennii ganacsatadeennii dadkeennii wanaagsanaa dadkeennii haldoorka ay ku dhiiradeen inay tagaan waa ilaahay baan ugu mahadinaynaa intaa waa inta caalamku maanta ugu soo gurmaday innaguna aan kaga qayb qaadanno runtii arrintan baaqa ah waan sii wadaynaa qof kasta oo soo gaarana waxaan leenahay barnaamijkan sii sheergaree si ay dad badani u arkaan laga yaabo dadkaasi inay ummaddaa wax u taraan oy u diraan baa laga yaabaa oy dadka wax un ka qabtaan dhibaatooyinka haysta intaas ayaan caawa kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeenii qayladhaan oo lagu magacaabo qayladhaan oon ugu qayladhaaminayna ummadda soomaaliyeed iyo muxsiniinta xataa kuwa carabiga yaqaana kuwa ingiliishka yaqaana inay u gudbiyaan inta luqooyinka ay ugu gudbin karaan inay ugu sii gudbiyaan si ummadahan iyo caalamka iyo dadka wax haysta ay inoogu soo gurmadaan marka barnaamijkan waxaa la dhahaa qayladhaan ma joojin doono barnaamijkan inta ay abaarahaasi ilaa xaddi maa ummadaasi waxtar ay ka helayaan rabbulcizana subxaanahu wa tacaala midda ugu weyn aan ka rajaynayna waxa weeyaan inuu raxmadna siiyo waa midda keli ee baahida dadkaasi kaga bixi karaan